waxaa nasiib darraa walaalkay ama walaashii inaad weli bedelin caadooyinkii xume aad samayn jirtay sannadkii shalayna dhaafay ee 2024 iyadoo maanta bilow ah sannadkii cusba ee 2025. waxaynu isweydiinaynaa su'aasha ah sidee ayaynu ku bedeli karaynaa caadooyinka xun isla markaana dhibaato ku ah nafaheenna. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kalaamkiisa ku leeyahay inna nafsa la amaaratun bisuu. camal nafaheennu ama nafteennu waxayna amraysaa xumaanta, laakiin haddii la helo qorshe cad iyo markaa adkaysi waxaa suurtagal ah in la bedelo dhammaan caadooyinka xun ee aad samaynayso isla wakhtigan aynu taagannahay. maadaama aynu islaam nahay waxaynu ogsoonnahay in allah subxaanahu wa tacaala ay naga xisaabin doono wax walbo aynu dunida ku samayno. su'aal: sidee baad u ilaalin lahayd ammaano uu kuu dhiibay saaxiibkaa ama qof aad qaraaba tihiin? waxaan filayaa jawaabtu inay iska fududdahay oo dhammaantiinba waxaa niyaddiina ku jira inaad ammaanadaas u ilaalin lahaydeen sidii ugu wanaagsanayd. tusaale, qof markaa saaxiibkaaga ayaa ammaano kuu dhiibtay, ammaanada waxaad u ilaalinaysaa sidii ugu wanaagsanayd ayaad u ilaalinaysaa ammaanada. haddaba waxaad ogaataa walaalkay ama walaashii in dhammaan xubnahaas ilaahay kugu qurxiyey ay kugu wada yihiin dhammaantood ammaano. tusaale ahaan, indhahaagu waa ammaano oo waxaad ku daawato ama wax xumaana haddaad ku daawato dee ammaanadaas aakhiro ilaahay uu ku weydiinaya maadaama aad islaam tahay. lugahaagu waa ammaano, haddii aad xumaan ku socotay aad xumaan lugahaaga ku aadaysay aad wax xumaana markaa ku soo qabsanaysay ama markaa waa lagu weydiinayaa. gacantaadu waa ammaano oo aakhiro waa lagu weydiinayaa. gacantaadu wax walbo ay qabatay, haddaad xumaan ku qabatay, haddaan wax walbo aad ku samaysay, haddii aad wax ku xadday, dhammaan wax walbo waa lagu weydiinayaa. waxaa sidoo kale ammaano kugu ah maqaarkaaga ammaano ku ah. badanaa waxaanu aragnaa dumar fara badan oo samaynaya inay markaa maqaarkooda bedelaan oo tusaale skiinkii ilaahay dee u sameeyey. ilaahay waa ka qur-aankiisa subxaana wa tacaala ku leh dee laqad khalaqna al-insaana fii axsani taqwiim. dee suuradtii ugu wanaagsaneed buu ilaahay kaa abuuray, marka sabab aad u bedeshay ma jirto. marka maqaarkaagan waa lagu weydiinaya aakhiro, waana kugu ammaano weeye. waxaan maanta halkan kugu soo gudbin doonaa 5 tallaabo oo haddii aad qaaddo aan kuu ballan qaadayo in dhammaan caadooyinka xume aad samaynayso inaad si fudud uga guulaysanayso. tallaabada koowaad: aqoonso caadooyinka xun. aqoonso caadooyinka xun ee aad samayso. ugu horreyntii waa inaad fahantaa walaalkay ama walaashay waxa kugu khasbaya inaad caado xun aad samayso. tusaale ahaan, habeenkii ayaa waxaad seexataa xilli dambe, 2 habeenimo, 3 habeenimo, whatever, xilli dambe ayaad seexataa. maxaa kugu khasbaya? marka waa inaad ogaataa maxaa igu khasbaya inaan seexdo habeenkii xilli dambe. waxaa igu khasbaya mobilka ayaan daawadaa, waxaa igu khasbaya ciyaar soo galaysa 12 ama 12 soo galaysa ayaan sugaa. dhammaan waxaasoo dhan markaa waa inaad iska bedeshaa. oo tusaale ahaan oo kale qofka hurdadu intuu saacan karo waxaa la yidhi 8 saacadood oo hurdaa qofku waa inuu helaa habeenkii. waa ka ilaahay qur-aankiisa kule dee habeenkiina waxaa lagu talagalay inuu qofku seexdo, maalintiina dee inuu dhulkiisa maro oo macaasho dee dhulkiisa uu dhex galo ayaa lagu talagalay uu shaqaysto. marka adiga markaa waxaa lagaa doonayaa inaad markaa caadada xun aad bedesho. tusaale ahaan kale waxaa kaloo kugu kalifi karaya xidhiidh baad samaysatay, xidhiidh baad leedahay, relationship baad leedahay, ama shukaansi baad gashaa. marka shukaansigaasi labaa loo kala saarana. midna waa markaa mid aad ishubtid oo markaa qofkii gabadhii aad doonanaysid, oo gabadhii tusaale kale dad reerkeeda aad ka doonanayso kale dee shukaansiga yaree dhow aad samaynaysaan oo dee wixii aad ku heshiinaysaan dee qorshayaashiina aad ku samaysanaysaan, dhibaato male. se kan iska daba dheeraadee dhallinyaradeennu ay sameeyaan kaasi markaa dhibaato aad u badan buu markaa ku hayaa, markaa dhammaan nafaheenna oo dhan ku hayaa. marka waxaan walaalkay ama walaashay kaaga digayaa inaad shukaansiga gebigiisaba inaad iska dhaafto maadaama aanad ahayn oo aanaad awoodeyn. ila waxaa la yidhi yaa macshara shabaab man istadaaca minkum albaab falyatasawaj, sooma? haddii markaa aanad awoodeyn iska dhaaf baan ku odhan lahaa, iska daa oo wax kala gasho oo hurdadaadii baa kuu hagaagaysa, camaladaadii kaloo dhan baa kuu hagaagaya. marka waxaan ku odhan lahaa iska dhaaf datingka badan ama shukaansiga badan, iska daa, iska dhaaf. oo waxaad samaysataa uun keliyaata inaad naftaadun aad ka taxadarto, naftaada ilaaliso. waayo adiga waxa lagu weydiinayaa waa naftaada weeye. naftaada ayaa lagu su'aalaya, lagu weydiinayaa. waxaa jirtay qiso ayaan idin dhex gelinayaa, qiso aan hadda ka hor maqlay.
qisadaasi waxay ahayd waxaa markaa uu xidhiidh ka dhexeeyey wiil iyo gabadh labadooduba waxay ahaayeen labo aad isugu dheer bay ahaayeen waxay wada hadlayeen muddo 2 sano ah wiilka iyo gabadhuba marka waxayna kala joogeen meel aad u kala fog bay kala joogeen haddaba wiilka iyo gabadhu labadooduba waxay ku xidhnaayeen ilaahay bay ku xidhnaayeen labadooduba oo mid walba wuxuu ahaa mid salaadiisa ilaashta tukada ay ahaayeen labadooduba sidaa u ahaayeen ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxay samaysay cid markaa faamiligeeda abi la soo hadashay waxay ku tiri markaa wiilkii waan fasaxay hawshiisa iska qabsado yaanu aniga isugin sidaa u ahayd arrintii ayaa waxaa dhacday wiilkii markaa uu iska ilaaway marka masalada markaa qisada marka la sheegay 2 mas'ala iga soo baxay ta koobaad waxa weeye masalada koobaad qisada laga qaadanayo ay iga soo baxday waxa weeye kow inuu labada qofba ilaahay jeclaaday oo hadeyntii ilaahay la jeclaaday waayo shaydaanku cadowgu nafta ku yahay si hadduu ilaahay ballan qaado inuu de shaydaanka ilaahay ka ilaalinayo ilaahay shaydaanku ka ilaalinaya oo markaa waxyaalo fara badan waxaad ismoodaysaa inuu khayr kugu jiro waxa la yiraahdaa waxaad moodaysaa inuu khayr kugu jiro adigu ayaaba shar kuuleba waxaad shar u haysatayna ayaa wuxuu ku leeyahay khayr ba kuule marka labada qof markaa waxaan ka qaadanaa shakadooda ta koobaad ilaahay baa iyaga jeclaaday oo hadeyntiiba ilaahay la doonayo maadaama dalbadooduba aanay xilligaas aanay isguursan karaynin oo tusaalahaan oo kale wiilkuna ay ku ogeedin wiilkuna iska durufsanaa oo aanu guur markaa aanu soo bandhigan karaynin marka ilaahay wuxuu la jeclaaday marka in labadooduba mid walba gaarkiisa iska ahaado oo markaa baddaas oo shawqansiga iyo hawlahaas ay ka baxaan marka ilaahay baa hadeynta labadoodaas la jeclaaday oo inay caado xun ku dhacaan ayuu markaa ilaahay uga digay talabaad ee iga soo baxday qisadan aan maqlay waxa weeye in qofka dhalinyarada ahi hadaba talo in qofka dhalinyarada ee aan awoodin inuu guursado aan awoodin gabadha inuu guursado aan awoodin waa inuu iska dhaafaa shukaansiga iska daaya maalinta uu helo uu awoodo inuu guursado marka ha shukaansado 2 cisho 30 cisho hala sira wareysto hala sira barto dan hadhowna markaa guurki ha dhaco xalaasha taasaa khayr badan oo ay qofku xitaa diintiisa waxa la yiraahdaa kala barkoo badh ayaa buu haystaaba marka taasay kula talinaya insha Allah talabada labaad ee marka aad sameynaysaa waxa weeye samayso hadaf cad yeelo tusaalahan waxaan waad joojisay hadafka ka dambeeya muxuu yahay gool ka dambeeya muxuu yahay tusaalahan habeenkii xilli horaad seexatay waa hadaf ku dejisan buu hawaad gaadhay marka hadafyo cad naftaada u samee war waxaas iska bedel waxaan kala samee tan kala samee waa inaad hadaf muuqda oo cad aad samaysataa haddaba walaalkii ama walaashii waxaan kugula talinayaa inaad yeelato hadafyo cad kuwaasoo markaa bedelaya caado kastoo xun aad samayso tusaale habeenkii xilli horaad seexataa waxyaalo markaa naftaada adiga kuu khaasa ayaad samaysaa cid kale hooyada oo aabbaha walaalka cid aan kula og aan jirin ee ilaahay kula og yahay waxa la yiraahdaa maalinta aakhiro waxa la soo xaadirinayaa qof buur camal ah sameeyay bal u fiirso wuxuu sameeyay camal aad u fara badan buu qofkaasi sameeyay haddana qofkii inta camalkii oo dhan ba intuu ilaahay ka wada qaado ayaa naarta la gelinayaa marka qofka noocaas waxa weeye waa qof dadka intuu xumaan kala qarsaday tusaale xumaan baa dadka ka qarsanaysa ee sayaa ku arkaya ilaahay baa ku arkaya marka xumaantii inta dadkii aad ka wada qarsatay ayaa waxaad samaystay adigu wax kuu gaaray aad samaystay tusaalaha kale dadkii ka salaad badanba ka sunnayaal badan salaatuleel baad ku kacsa everything wax walba waa tukanaysaa haddana waxaad leedahay caadooyin xun oo adigii ilaahay aad isla ogtihiin tusaalahaan adiga gaarbad heese u dhegaysanaysaa tusaalahaan waxyaalo kaloo xunxun baad samaynaysaa dhammaan waxyaalahaas oo dhanba oo wax adiga ilaahay aad isla ogtihiin ilaahay ku kashifi maayo eese ilaahay uu ku eegaya ilaahay dumadiisa uu fiiriyaa balina waxaan ka soo noqdaan marka ilaahay uu ku eegaya maalinta uu ilaahay ku qabtay uu ku qabanaya qabasho daran ilaahay ku qabanaya way talaabada saddexaad aan ku sheegay wax weey bedel caadooyinka xun caado xun baad samaysaa Soomaa bedel tusaale waxa tahay qof sigaar cabaa tahay oo sigaarkaad marba in yar baad cabtaa ku bedel inaad xanjo cunto inaad neef fiican qaadato toomir ku bedel caadooyinka xumaas ka bedel tusaale ahaan waxaad samaysaa dating fara badan baad leedahay shukaansi badan baad leedahay oo dumarka iyo xaasad markaa ku xidhxidhantahay u tagta bedel waad bedeli karaysaa ku bedel marka wax kasta marka tusaale markaad caadooyinka xun markaad bedelayso waxaan ku siinayaa trigger baan ku siinayaa waxa jirta waqtiyo
qofku caadada xun uu sameeyo tusaale xilli gaar ah ayaad iska cabtaa tusaale xilli gaaraad gabadh la hadashaa xilli gaaraad wax samaysaa xilliyada caadada xun aad samaynayso timekeedii wax kale ku bedel tusaale hees baad dhegeysan jirtay tusaale ahaan heestii timekii heestaad dhegeysan jirtay wax kale ku bedelba oo tusaale ahaan naftu sida caadooyinka xunxun u bedesho waa la mashquuliyaa nafta firaaqada ka ilaali haddii inta aad dheregto oo aad firaaqa hesho naftu waxay doonto ay ku odhanaysaa samee waana aayadda quraanka sheegaya hadda ahayd inna nafsa la amaaratun bisu naftu waxay ku amraysaa xumaanta ayay ku amraysaa xumaanta marka naftaada waxaad ka ilaalisaa dad doonaysa caadooyinkaaga xun inaad bedesho naftaada firaaqada ka ilaali haddaad xitaa waxaad qabato weydo faamiliga la sheekayso faamiliga u tag la sheekayso marka iyaga markaa isku mashquuli marka on the day markaad maalin walba sidaas samayso naftaada mashquuliso hadhow caadadii xumayd waabaad iska ilaawisaa ama hees baad dhegeysan jirtay ama waxyaalo kale aad samayn jirtay dhammaan wixii oo dhanba waad iska ilaawisaa marka taasaan kugula talinaya talaabada afraad aan ku siinaya waxa weeye ka bilow meesha ugu yar camal haddaad doonaysa caado xun inaad bedesho meesha ugu yar ka bilow oo tusaale ahaan oo kale haddii aad habeenkii oo kale aad seexan jirtay labada habeenimo aad seexan jirtay tusaale ahaan labada habeenimo aad seexataa waxaad seexataa tusaale ahaan waxaad meesha ugu yar baad ka bilaabaysaayo war caawa markaa nafteeda waxaan go'aansaday hadafkayga cadi waxa weeye inaan caawa seexdo kowdaad kasoo bilaabaysaa kowda marka naftaada iskala qabsato haddana waxaad kasoo bilaabaysaa maalinta waxaad seexanaysaa 12 haddana markaad naftaada la qabsato waxaad seexanaysaa haddana 11 haddana 10 ka 10 haddaad seexato 6 saacadood oo hurdaa baad helaysaa 6 saacadood iyo weliba badh oo hurdaa ayaad helaysaa afarta waxaa laga yaabaa inaad si fiican u soo kacdo daad ilaahay u noqoto waayo dunidan adiga waxaa lagu keenay ilaahay dunidan wuxuu u keenay shaydaan iyo insi iyo dejinba ilaahay dunidan wuxuu u keenay inay caabudaan soo marka adiga haddaad islaam tahay muslim tahay waxaa lagaa rabaa markaa dee inaad ilaahay aad siiso waqti gooniya ilan adigan caadooyinka xumaaba waqti gooniya siinayay ee waqti gooniya ku luminayay maxaa diidaya inaad ilaahayna aad waqti gooniya aad siiso oo ilaahay markaa dambi dhaaf badan weydiisato ilaahay waa qafuur raxiim oo ku dambi dhaaf badan weydiiso marka taasi markaa waa meesha ugu yar inaad ka bilowdo waa talaabada afraad aan kugula talinayo talaabada shanaad ee ugu dambaysa aan ku soo xidhayo waxa weeyaan ku soo gunaanadaya dulqaad yeelo joogteena samee dulqaad yeelo oo markaa waxaad markaa caadadii xumayd markaad bedesho naftu waxa ku imaanaysa xanuunaa kugu soo darsaya tusaale markaad wax iska joojisaba stress walwal wax walba waad dareemaysaa isla markaad waxaad samaystaa dulqaad u yeelo waxaasoo dhanbo ilaahay markaa u noqo ilaahay markaa isaga dambi dhaaf weydiiso ilaahu markaa ii boogdhay dheh isagaa ku boogdhayaya markaa oo wax walba ku ilowsiinaya xumaan wax walbaad samayn jirtay caado xun kasta isaga ilaahay ku ilowsiinaya marka ilaahay u noqo dulqaad yeelo wixii aad samaysayna ee wanaagsanaana joogte u samee oo joogtee markaa walaalkay ama walaashii waxaan kugu soo gunaanadayaa inahaas talaabooyinkaas inay ku anfacaan haddii markaa wax badan aad ka fahantay markaa bal u sheergare asxaabtaada kale bal u sheergare insha Allah iyaguna inay wax badan ka sii faa'iidaan ilaahayna hay naga dhigo kuwii markaa hadallada aan soo jeediyay dhammaanteedaba nafteeda iyo markaa nafihiinaba inuu ilaahay markaa ku anfaco aad baad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh